gobolka hiiraan wuxuu leeyahay xuduud waddanka Itoobiya wuxuuna kala leeyahay xuduud ahaan jirta xuduud beenaad feer waxaan la soconnaa feer ilaa 7 kiiloomitir meel la yiraahdo Aabaaley oo Soomaali leedahay oo gudaha Soomaaliya waxaa ka taagan calan 3 usbuuc ka horna waxaan ka warqabnaa 12 kiiloomitir oo tii hor lagu daray taqriiban 18 kiiloomitir oo gudaha Soomaaliya ah in ay Itoobiya balaaninayso inay gudaha u soo gasho su'aashaydu waxay tahay marka xagee laga geynayaa meeshaas waxay ka mid tahay meelihii xuduudaha ahaan jirtay wax war ama ka haysaan xagee aan dhageysan su'aashii xildhibaanka markuu hadlay la dhageysan adigoo maasan warkaygu wuxuu ku dheeyahay xuduudii 18 kiiloomitir baa gudaha loo soo galay wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirka amniga iyo xuduudaha hadda laga hadlayana way fadhiyaan waxaan rabaa in ogaado xagee la dhigayaa immigration officerska ama xuduudda laga kontaroolaa haddii 18 kiiloomitir gudaha loo soo galay waxaan idin xaqiijinayaa taqriiban 7 kiiloomitir tuulo ku taallo oo Aabaaley la yiraahdo oo Soomaali gudaheeda ah calan Itoobiyaan ah ka babismaayo meeshii laga rabay immigration la dhigo gudaha 18 kiiloomitir loo soo galay maxaa laga sameeyay salaam alaykum feer horaan uga hadalnay burburka kadib xuduuduhu waxa ku dhacay waxa ciidamada xoogga dalka ayaa ilaalin jiray burburkii dawladana waxa la burburay ciidankii xoogga dalka ayaa burburay taasna waxay keentay xuduuduhu inay iska furnaadaan wadamada qaar waxay xuduudaheena gudaha u soo galaan iyagoon cidna ogeysiin mararka qaarna waxay ku doodaan inay ammaankooda owgeed u soo galeen hase ahaatee feer horena waa uga hadalnay dadaallo badan aan ku bixinay usbuucyada la soo dhaafay shaqooyin badan aan ka qabanaynay si loo howlgelin lahaa hase ahaatee wax kasta waxay ku xiran yihiin maamulka meesha ka jira iyo dadka meesha jooga hadba siday ugu diyaarsan yihiin in adeegaas ay qaabilaan oo xafiiskaas soo dhoweeyaan welina arrintaasi ma dhammaanin waana laga yaabaa inaad idaacadaha ka maqasheen qaybo ka mid ah dadaallo badan oo la samaynayo iyo caqabadaha yaalla marka waa wax u baahan maamulka meesha degan inay xal ka gaaraan hase ahaatee innagu waxa laali wixii meesha looga baahnaa oo qalab iyo ciidan iyo saraakiil ka howlgasha iyo sidoo kaleeto dhismihii xafiisyada dhammaan waa geynay waana u diyaarinay waxa dhiman waa wax u yaalla maamulka meesha ka shaqeeya iyo dadka meesha degan ayay u taallaa